kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada Somali My TV iyo waliba S24 TV ee North America. daawadayaal sida aad la socotaan gobolkan Minnesota caawa waxa si weyn jaaliyada Soomaaliyeed ay ugu soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ali Ahmed Guure oo gobolkan Minnesota booqasho ku jooga xaflad runtii aan u maleynayo inaad si fiican uga hesheen halkan khudbado fara badan ay Soomaalida qaarkoodna ay ka ballan qaadeen inay ay maaragtay wax weyn ay la qaban doonaan waxa agteeda fadhiya aan fursad u helay inaan waraysi gaaban la yeesho mudane Ali Ahmed Guure mudane gudoomiye ku soo dhawaad Somali My TV iyo waliba S24 TV ee gobolka Minnesota waa mahadsantahay waa dhawahay waan idin madcelinaya labadiinaba mudane gudoomiye marka hore aniga iyo daawadayaashana daawanaysaba waxaan jeclaan lahayn socdaalkan aad nagu soo gaartay ee gobolkan Minnesota muxuu ku saabsanaa بسم الله الرحمن الرحيم اولا waxaan mahad celinayaa My TV S24 iyo adiga iyo shaqaalaha dhanba iyo maamulka wuxuu ahaa shaqaan ka soo hadafka aan u soo aaday waqooyi America anoo ka soo bilaabay wadanka Canada magaalada Toronto soo maray Washington DC hadda inta Minnesota aan joogo hadafka aan u soconay oo amba aan ujeedada aan ka lahayn safarkay wuxuu ahaa in aan warbixin aan siino qurba joogta wadamada waqooyi America horumarka xagga amni iyo xag bulsho ay magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliyeed ah midnimadii astaantii qaranimada Soomaaliyeed ah inaynu horta warbixinta iyo ugu bishaarayno wanaaga iyo horumarka la gaaray kadibna aynu ku baraarujino inay ka qayb qaataan dib u dhiska magaalada caasimadda aan wada leenahay qol aysan lahayn qabiil aysan lahayn gaar aan loo lahayn ummadda dhan ka wada dhaxaysa midka ku dhashay iyo midka tuulka ka yimid midka weligii tagin ba Soomaaliya aan tagin in caasimadda naga dhaxayso ummadda aynu sheegno ayaynu rabnay ka bacdina aynu niraahdo war caasimaddiini waa idin baahan tahay muddo dheer bay la burburinayay hadda waxay u soo jeesatay waxay rabtaa diyaar u tahay in dib loo dhiso shacabkii Muqdisho joogana diyaar wuxuu u noqday horumarka dawladnimada qarannimada iyo wanaagaas oo dhan uu noqday marka inay ka qayb qaataan kii aqli haya kii cilmi haya kii dhaqaale haya kii wax qaban kara naftiisa ka soo qaadin kara amba cid kale oo yaqaano dawladaha ay la degan yihiin amba ay martida u yihiin amba ay kamid yihiin oo ay qaateen dhalashadoodii iyo inay ay naftoodu ay wax la qabto ayaan rabnaa inay ku baraarujino qurba joogta waqooyi America waa gartay mudane runtii dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir aad idinkuba aad madaxda ka tihiin mar walba dhibaatooyin fara badan ayaa lagu soo sheegaa haatan amaanka gobolka Banaadir maxaa lagu tilmaami karaa qurba joogta marka ay fiiriyaan mar walba qaraxyo ayaa ka dhaca idinkuna waxaad sheegtaan inay nabaddu ay soo noqotay halku uu fiican yahay marka maxaase lagu tilmaami karaa haatan gobolka Banaadir waad mahadsantahay horta waa su'aal fiican oo markaan yiraahdo oo dadku ay yiraahdo magaalada Muqdisho waa amni horumar weeye haddana oo amba dil ka dhaco amba qarax ka dhaco dad fara badan iyo jaba u noqon karta oo waa wax dhici kara laakiin waxaan leenahay waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka qurba joogta iyo Soomaaliya meelay joogaan oo dhanba magaalada Muqdisho 16 degmo ay ka kooban tahay gobolka Banaadir ka kooban yahay dawladda ayaa gacanta ku haysa amnigeedana ayaga suga taa horta waa labo markii laga hadlayo amni laga hadlayo waxaad og tahay dawlado naga badan dawladda hadda waddanka aan joogtiin America ayaa qarax ka dhacay kana dhici kara dawlado kale naga awood badan naga dhaqaale badan naga wax waxyaalaha looga hortago argixisada looga hortago ayaa inta la dhex galay ayaa wax laga sameeyay horta waxa muhiimaddu waxay tahay dad tuuga ah amni darro wada caruurta iyo dumarka kuwa dhinac maraya fulayiin ah markii banaanka la isku baxay soo dhuumanaya dadka soo bedelanaya horta inay inta laga hortagay oo ciidanka amniga ka hortagay nabad sugidda iyo booliis shacab Soomaali oo soo sheegayaan waxa weeye horta ayaa ka badan inta hal mar dhacda marka waxaan leenahay horta waan ku xunnahay in ummadda wax la yeelo waan ku dadaalaynaa in amniga 100% la sugo wax aysan dhicin laakiin waxaad og tahay amni darro laguma tilmaamo hal dhacdo oo dhacdo amnigu waxa weeyaan in muhiimaddu waxay tahay yaa wadankii amnigeeda gacanta ku haya waxa la soo maray magaaladan burbur fara badan 20 sano
laysdilayey laysqaxinayey cid kastaba ay amni aysan haysanin ayaa la soo maray waxaa la soo maray in kala xirneed magaaladu ay kala xirantaa soo maray mar dhawe waxay ahayd dawladdu inay 4 degmo iyo wax lamid ay gacanta ku haysay marka iftiinkan yimid waxaa yani hal mar suurtageli mee in la yiraahdo cudurkii ku dhacay magaalada Muqdisho dhowr iyo 20 sano hal mar inuu 100% mar daawo ay kacdo ma suurtagelayso laakiin waxaan leenahay daawadii dhakhtar fiican baa helay dawladnimaa la gartay qarnimaa la galay qabaaladii bay ka baxeen ummad doonaysa amniga iyo wanaagga wuxuu yahay og xumaanta ka fogaanaysa ayaa marka ummadii maanta Muqdisho joogtay bay noqotay iyo ummadda Soomaaliya joogaanba marka waxaan ka wadaa taas in amni darada la sheegayaa ma ahan sida loo sheegayo 16 degmo gobolka Banaadir dawladda xukunta maamulka Banaadir bay hoos tagaan amniga ka shaqeeya hamiya maalin dhacdana waa ku xunnahay laakiin noo noqon mayso niyad noo noqon mayso inaa shaqadii aan wadna laga waxayo dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa in aysan u noqonin niyad dhacday marka waxaan rabnaa dhacdaas waan horta in laga hortago way tahay inaynu mar labaad aysan dhicin waan rabnaa laakiin dad ku afa kugu midaba kugu jinsiya ku gura marka inay waa la dadaalaya laakiin mararka qaarkood hal xabo ka fakada tuug fakada waa la helaya adduunka amba wax qarxiya amba wax dhaca amba wax hay marka waa dad tuuga ah oo soo dhuumanaya waana ka hortagina hadii Ilaahay yiraahdo laakiin mudane gadoomiye runtii marka aad fiirisid qaraxyadan mar walba sii dhacaya gobolka Banaadir ay ugu sii badan yihiin wala ogyahay al-shabaab gobolka Banaadir waa laga saaray sida wararka ay sheegeen idinku baad ogtiin aad leedahay in laga saaray degmooyinka oo dhan meelaha kasta ay ku jireen haatan hadii laga saaray goobaha ay degan yihiin wax walba laga saaray sidee dadka loo kasban karaa marka dadka maskuudeeda inaad kasbataan waayo mar walba waxa isqarxiya sida hadda qarxi ugu dambeeyay la noo sheegay inay gabar Soomaali ah ay soo gashay meesha isqarxisay nidaam ma laha miya meesha baaritaan oo la isbaaray madaxdii ayaa ku jirta wayna ogsoon yihiin in qarax mar walba dhici kara wax walba ay ka dhici karaan maxay tahay sahalkan oo mar walba ay sahalnayaan qaraxan oo kale madaxda loo geysanayay shacabka Soomaaliyeed horta marka hore waxa weeyaan in la kasbado shacabka waxa lagu kasban karaa in ummadda la wacyi geliyo waxna loo qabto shacabka Muqdisho joogaahu waa la kasbaday diyaar buu u yahay cadawgiisa iyo saaxibkiisa waa kala gartay cidda wanaag u wata cidda xumaanta u wata waa yaqaana taa marka horta shacabka Muqdisho diyaar wuxuu u yahay in gabadha waxa hubaa gabadha maanta Muqdisho joogta 99% inay diyaar u tahay wiilkeeda odageeda saaxiibka cid kasta ay taqaano oo dhibaato wad inay soo sheegto taa wax horta waa horumar wanaagsan la gaaray aanan muddo aanan hore aan la gaarin labo dhinaca maxaa ay dadkan marar badan ay qarx u sameynayaan waa sax waxay tahay saa hore u sheegay dad Soomaaliyeed ee calooshi u shaqaysta ah ee ummad kriminaal oo dambiile ah ay soo adeejiyeen oo ayaa horta waxaan sameynaya oo firad kale ku socda labo maxaa meeshii ay amniga mas'uuliyiintu imaanayeen maxaa loo sugi waayay waa su'aal wajiha waxa weeyaan waxa laga maarmaana in mas'uuliyadda la qaado in la sugo inta tabarto la dadaalo laakiin saa hore u sheegay cid Soomaali ah ee ku afa ku magaca ku waxayna dhacdooyin waa dhici karaan waa adduunka way ka dhacaan laakiin anaga waxa ku dadaalayna hubaal ah in ku dadaalayna in la taxadiro oo duruus laga qaato oo aan leeyahay mas'uuliyiintu ay ka fikiraan in dhacdo 2 iyo 3 dhacdo in arintaasi darsi laga qaato in laga hortago inaysan mar labaad dhicin mar saddexaad dhicin in lagu dadaalo waa wax laga maarmaan waana ku dadaalayna hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku rajaynaynaa inay mar labaad taas oo kale ayna dhicinin waa gartay laakiin qaraxan hadan dhacay dadku sida aad maqlaysay waxa lagu sheegaa in ay ka dambeeyeen dad aanan ahayn al-shabaab sida dadka wararka ay sheegayaan adinku ahaan as gadoomiye ku xigeen ahaan gobolka Banaadir maxaad si aaminsan tahay qaraxan iyaasa ka dambeeyay isleedahay ila tahay ninkii sheegtaa ka dambeeyay ayaaba sheegtoo yiri anaga ka dambeynay anaga dadka dilnay waxaan uu tala galnay ummadda Soomaaliyeed Muqdisho joogtay amnigooda in la qalqal galiyo dadka dawladda sheegatay amni sugtay amni inay sugin baan rabnaa inaan dad u soo jeestay oo kaliya hadafkoodu uu yahay inay dadka qalqal galiyaan inay barakiciyaan inay dilaan ayaaba sheegtay marka ninka dhaxaya cid kale ka dambeysay ama cid kale u tiirinaya waxa ila tahay macni asaa laga rabaa ninkii ka dambeeyaba sheegtaba
ayaaba iicada ka hadloo sheegtay marka ninkii sheegtay ayaa oo la soo istaagan ayaa lagu xukumayaa cadaaladna la soo hor istaagi doona haddii ilaah yidhaahdo aakhirana wuxuu ka hela buu leeyahay laakiin cid kale oo aan dembi loo yeelo amba waxyaale oo dadku ay ku fikirayaan la kiciyo dadku waa walaalo waa dad dowladnimo qarannimo iyo dowladnimo iyo walaaltinimo diyaar u ah waxaan hubaal ah nin Soomaali damiir leh wax gartay caqli leh in mas'uuliyiinteed waaweyn meesha imaanayaan aqalada imaanayaan dadkaas imaanay hatta hadduu cid u jeedo inuu ka xishoono inay suurtagelin dadka aan arxan ka lahayn dadka dhibaatada wada ummadda dhiigii cabka waa dadka sheegtay way cid kale kama dambayso ayaga baa ka dambeeya laakiin haatan gobolkan Minnesota soo dhaweynta jaaliyadda Soomaaliyeed ay ku sameysay maxaa kaaga baxay maxaa dareensan tahay marka aad ka filaysaa inay maaragtay ay ku noqon doonaan والله ولا وحويان آد لقى بالله من صوت كلية ما هني أمريكا كندا إنتان صومري كو حيتصيسي ومدى الصومالية من مدى ولا لتنمدى شعور كي الدرين أي دون هي دولة نمدى أي هرتا وحكة تكوين محيا الأمد فكرة دا أمد حادثة فكرة عقلية مسك حادثة ummaddu waxay ku qabsataa inay horta fikirto inay aqli iyo maskax iyo siyaasad ay yeelato marka waxaan fahmay oo aad shucuurkaygu dareenkaygu aad u kacsan yahay meel macaaw aanan khudbooyinka iga horeeyay aanan la tilmaami karin inay ummadda Soomaaliyeed midowday inay walaaltinimo ay rabto inay wax qabsanayso inay doonayso inay wadankeedii dib u dhisato tuulo iyo degmo iyo caasimadba ayagoo midaysan inay doonayaan inay diyaar u yihiin in alla ninkii ka hor yimaado doonay inuu maanta ratiga ku kacsado inuu doonayo yiraahdo qabyaalad iyo qurun iyo qobol iyo wax kasta soo celiyo inay diyaar u yihiin ay ka hortagaan marka aad baa ugu faraxsanahay waxa weeyaan ninku haddii la midoobana waxa weeyaan waxbaa la tiri karaa marka midnimada aan ka dareemay waqooyiga Ameerika iyo Soomaaliya dhan ay aad ugu farxsanahay ilaahina waxa ka rajeynayaa midnimadaas inuu waariyo wax alla wixii tafarruq noo keen lahayn oo naga celiyo ugu dambeyntii mudane gadoomiye su'aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo qorshihiina haatan muxuu yahay maxaasad qaban doontiin ugu dambeyntii haatan gobolka Banaadir aad ka sii qaban doontiin asliin qorshihiina kale qorshahayna waxa weeyaan horta inaynu gobolka Banaadir amnigiisa inta ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta ka dhiman amba inta aan isleenahay waa laga soo gali karaa inaynu ka sifayno wax alla wixii amni darro wuxuu keenaya magacay doonaan ciday doonaan madhabtay doonaan ha yeeshaa inaan ka sifayno labaad waxay tahay arrimaha aan bilownay ee adeega bulshada ah ee nadaafadda ah caafimaadka iskoolada ah jidadka la dhisay nalaynta ah inaynu sii wadno oo horumar ummadeen u khidmayno intaynu joogno waxna ka tagno inaynu ummadeen saasaan ayaa noo ballam ayaan go'aansan hadii ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsantahay mudane gadoomiye waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaabna oo aan la yeelanayay gadoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure oo gobolkan Minnesota lagu soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliyeed waanigoo ah Liban Hussein S24 TV iyo waliba Somali My TV Minneapolis